waxaan ku faraxsanahay inaan u joogno saaka in shilkii shanaad ay Hargeysa maanta adduunka la tallaabsanayso. Dunidu casri bay noqonaysaa, si xawliina ugu maraysaa. Wadamada luudaya aan isbeddel degdega keenayn adduunku ma sugayo, dibna loo eegi maayo. Waxaa loo baahan yahay in adduunka la dhaqaaqno oo aynaan noqon kuwa dib loo soo eegayo. Waxaynaan samayn karayn maaha, waa samayn karnaa. waxaan si taraso uga mahadnaqayaa in adduunyada socotay ee xawliga isku beddelaysa inay inoo sahlayaan inay la dhaqaaqaan dhinaca teknolojiyada. Somalilandna 20 sano telesom jirtay, tallaabo kastoo adduunku qaado ayuu la qaadaynay. Kombaniguna taa waa ku mahadsan yahay. Adduunkii marka waxaa laga hadlayaa caasimadaha casriga. dhowaan waxaan tegi doonaa shir kombaniyada doorka ku leh Hargeysa ay casri noqotana way raaci doonaan insha allah. waxaan runtii uga mahadnaqayaa magaaladan khayrka badan in kombanigani uu runtii door weyn ka soo qaatay sidii ay u noqon lahayd magaalo la jaanqaadaysa adduunka. inta hadhaya faraha badanna waynu wada qabanaynaa si markaa aynu uga mid noqono caasimadaha casriga ah. waxaan doonayaa tusaale inaan soo qaato adeegyada dowladda hoose iyo kombanigan. waa ogeydeen gaadiidka dowladda hoose inay ahaayeen qaar meel walba iska yaalla, xilli walba cararaya. laakiin maanta waxaan ognahay gaadhigu halku marayo, saacaddu marayo, shitaalku isticmaalayo, xawliga uu ku socdo. intabana kombaniga telesom ayaa noo sahlay. waxaan xasuustay habeen dhowri anagoo goor dambe meel marayaan gaari dowladda hoose leeda arkay, isna xawliguna ugu dhaafay, anaguna waan dhaafnay. dabeetana maan arki karin nambarkiisa saad u garto saacadda gaadhiga halkaa maraya si aan la ogaado sababta uu marayo. waxay igu qaadatay daqiiqado kooban inaan ogaado gaadhiga halkaa marayay ahaa, degmaduu ku qoran yahay. dabeetana markaa aan la hadlo mas-uulkii oo ku idhaahdo saacaddan iyo xilligan gaadhigani muxuu inoo qabanaya. waa maxaa ugu yareen sheegi karo. dii teknolojiyada sida wanaagsan ee khayr kale looga faa'iidaystana faa'iidooyin badan oo kuwaas ka mid yihiin bay leedahay. shar iyo dhibaato badanna way leedahay, because mar kastoo dunidu sii casriyoobayso inta uu cabduuli halkaa ka sheekeeyey dee waxay imanaysaa in qof intuu muuqaaga qaato wuxuu doono ku sameeyo, dabeetana adigoo qofkaasa kaa dhigo oo aad garan weydo. waa in xeerkii aynu ku dabaqilin marka la ogaado qofkii waxaa sameeyey lagu xukumi lahaa inta oonay noqon iska xukun. marka waxaan rajeynayaa wasaaraddu inaysaa insha allah iyaduna dee la dhaqaaqo dunida casriyoobaysa waxyaalo casriya oo lagu maqlayo waxayna samaysa insha allah. waxaan rajeynayaa inaynu saynu saaka ugu guuleysanayn shilka shanaad Somaliland la jaan qaado. waxaan rajeynayaa inaynu dalkeenna iyo magaalooyinkeenna weliba madaxdaan la hadlaya anaa isla hadlayeen inaynu dadaal badan ku bixino si dalkani u horumari lahaa, isu bedeli lahaa, dalalka adduunka iyo magaalooyinka adduunkana uu la mid noqon lahaa. inaynu dadaalka la nimaadno, midnimo la nimaadno, nabadgelyo ilaashano la nimaadno. qabyaaladan iyo qolqoladan iyo xeebdigan iyo qofkan aan dhargeyne xoolo u raadinaya inaynu iska dayno, dalkeenna yar usoo jeesano. ninba intuu qaban karayo uu qabto, kaalinta bannaan isleey way gufeyn karaysaa la gufeeyo, halku isleey ceeb baa taana ceebta asturo hagaajiyo insha allahu tacaala. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.